Assalaamu calaykum. Niil ilo burqanaya oo muujinaya naxariis iyo nagaashaha nolosha. Mowduucan waxaan kaga hadlaynaa biyaha webiga Niilka ee mara qaaradan Afrika. Ku soo dhawow mowduuc ku saabsan Niil Rivers oo mara qaaradan Afrika ahna webiga koowaad ee ugu dheer adduunyada. Probably India, Bangladesh. I didn't have a chance to do it this time, but next time. Wow. Webiga Niil waxa uu ka soo unkamaa qaaradda Afrika gaar ahaana harada Victoria oo ku taala dalka Rwanda. Halkaas ayaana unug u ah biyaha webiga Niilka. Sidoo kale harada Victoria waa harada koobaad ee ugu weyn adduunka ee biyo qabata waxayna ku taalaa dalka Rwanda waana unuga biyaha Niil. Webiga Niilku waxa uu maraa 9 dal oo dhaca qaaradan Afrika isagoo u qulqulo dhinaca waqooyiga qaaradan Afrika. Ugu dambeyn waxa uu socdaba waxa uu ku dhamaadaa badda Mediterranean-ka ee xeebaha waqooyi ee dalka Masar. Waxa uu sii maraa dalka Itoobiya halkaas oo kaga darsanta harada Tana oo ay ka soo baxaan biyaha webiga Niilka ee loo yaqaano Blue Nile iyo White Nile waxayna ku kulmaan goob u dhow caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan. Harada Tana ee Itoobiya ayaa ku soo darta biyaha webiga Niilka biyaha buluuga ah halkaas oo uu iskaga darsamaan Niilka cad iyo Niilka buluuga. Sidoo kale harada Tana waa harada ugu ballaaran Itoobiya waxayna qabataa biyaha ka soo dhaca buuraha waaweyn ee dalka Itoobiya taas oo Blue Nile loo yaqaano. Biyaha webiga Niilku waxa uu qulqulaa ku dhawaad 7,000 oo kiiloomitir oo markaasi ugu baxo dhinaca waqooyi. Biyaha Niilka waxa looga faa'iideystaa siyaabo fara badan oo ay ku nool yihiin dalalka uu maro iyagoo ay qaarkoodna ay qarka u saaran yihiin in biyaha webiga Niilka la'aantii aynaysan noolaan karin. Tusaale ahaan dalka Masar waxa la isweydiin doonaa haddii uu ka go'o biyaha webiga Niilku halkan ma dad ayaa ku noolaan jiray oo dal ayay ahayd waana sida ay sheegeen saynisyahanadu. Dalalka oo maro biyaha webiga Niilku waxa lagu kala magacaabaa dalalka Masar, Suudaan, Itoobiya, Suudaanta Koonfureed, dalka Burundi, Congo Kinshasa iyo sidoo kale dalka Kenya, Rwanda iyo sidoo kale dalka lagu magacaabo Uganda. Halkaas oo biyaha webiga Niilku aad u maasheeyo dalalkaasi waxaana aad ugu tiirsan dalalka Saxaraha Afrika ee ay ka mid tahay Masar iyo Suudaan. Biyaha webiga Niilka oo ah biyaha ugu quwadda ballaaran qaaradan Afrika ayaa waxaa laga sameynayaa biyo xidheenka ugu weyn qaaradan Afrika taas oo ay ka wado Itoobiya gobolka Benishangul. Muranka la xiriira biyo xidheenka Itoobiya ee markaasi laga sameynayo Niilka ayaa sababi kara isku dhac iyadoo xaaladuna haatan ay marayso meel xurguf aad u daran oo aynan Itoobiyana aqbali karin in dhexdhexaad laga noqdo arrimaha la xiriira biyaha webiga Niilka. Biyaha webiga Niilka waxa aad ugu tiirsan dalalka Masar iyo Suudaan. Dalka Masar waxa uu yahay il aan la taaban karin waana nolosha dalka Masar ee ay ku xidhan tahay biyaha Niilka boqolkiiba 90 ayay ku tiirsan tahay dalka Masar biyaha Niilka. Magaalooyinka waaweyn iyo beeraleyda dalka Masar waxay ku tiirsan yihiin sidii tusbixii aagga u maro biyaha webiga Niilku waana halka ay wax kala soo baxaan masaaridu. Sidoo kale waxa aad ugu tiirsan dalka Suudaan halkaas oo uu kala dhex maro caasimadda Khartoum biyaha webiga Niilku waxaana muujinaysaa in uu yahay halbowle aad ugu wanaagsan beeraleyda iyo wax soo saarka cabitaanka biyaha ee Niilka. Khubarada saynisku biyaha webiga Niilka waxay ku tilmaamaan jannada Afrika iyadoo loola jeedo qaabka wax u maasheeya iyo dhulka aadka u baaxadda ballaaran ee uu maro biyaha webiga Niilku iyo qaabka looga faa'iideystay aadka u cajiibka ah
iyo dalxiiska ku tiirsan biyaha webiga Niilka ee sida sanadlaha uga soo dalxiis taga dhulka oo maro biyaha webiga Niilka ee Afrika. kun 1929kii dowladda Masar oo ahayd dowlad yar waxaa gacanta loo geliyay maamulka iyo gacan ku haynta ee ugu sarreeyay biyaha Niilka oo ay gacanta u geliyeen dowladda Ingiriiska ee ka talinaysay gobolka waqtigaas, waxayna taasi sababtay muranka haatan taagan ee Niil. wadamo fara badan oo Afrikaan ah ayaa doonaya oo ay maro biyaha webiga Niilku in dib loogu noqdo sharcigaasi, balse Masar iyo Suudaan ayaa ku adkaysanaya inuu yahay sharciga shaqeynaya ee saxda ah laguna dhaqi doono ku dhaqanka biyaha webiga Niilka. arrinkaas oo Itoobiya ka boodsan tahay oo ay ku tilmaamayso gumaysi. Niil waxa uu maasheeyaa malaayiin xayawaano iyo dad. biyaha Niilka ee aadka ugu tiirsan yihiin makhluuqaas oo Ilaahay ku dhaqay Niilka haddana kama marna qaybta dalxiiska ee adduunweynaha. falashada beeraha, ku dhaqashada xoolaha, cabitaanka biyaha iyo qaabab kala duwan oo looga faa'iideysto biyaha Niilka ayuu haddana yahay isha ugu cajiibsan ee loo dalxiis tago ee ay la xiriirto dhinaca webiga.